nin baan garanayaa sidaas samayn jiray oo shaahadtuhu ana uu dhintay hadda ninkaasi waraaqo soo ururiyo odhan jiray maalin maalmaha ka mid waxaan usoo ururinay waraaqo hudheel meesha ku yaalay afka la iska mariyay beriga hore maaladiisha naacimkii ma jiro waraaqa la iska mari jiray tana meel buu saa u dhigay saana dabayshu qaadin dhagaxan buu saaray tooshna uu ku shiday halkaasuu istaagay annagana ka durkuu nagu yidhi wuxuu akhriyay marka kana waxa ruu yar baanay waxaan ma fahmayno ninkaas inuu lacag sameeyo waan maqalay lacag baan doonayna in yar kadib uu ka qaaday dhagaxantii lacagaydaan idinku soo gaadhin oo 5 shilin ay ahaan jirtay dowladdii Soomaaliya hore oo midabkeeduna casaan yahay bay waraaqii afka la iska mariyeen soo ururnay noqdeen marka uu nasiye nacam ayo xasan ku iibsan habeen kale waxaan garanayaa iyadoo meel aroos la fadhiyo ayuu waxa socday waqtiga lacag cusub ahaa 20 shilin gini baa la oran jiray 20 shilin oo loo baa ku sawirnaan jirtay waraaqu waxa weeyaan soo ururiyo sida uu xiray barkimadu ku fadhiyo hoosteedu geliyay xoogay kadib uu ka soo saaray iyadoo ah 20 shilin oo noor macna lacagta cusub ee marka bangiga laga soo saaray la isticmaalay Sheekh Faysal lawaad garanaysaan wuxuu ii sheegay inuu aabihii u sameeyay sanduuq lacaga cusub kadibna muddo yar kadib sanduuqu uu noqday waraaqa caadi ah markuu hore u isticmaali waayay marka laba midkood bay sameeyaan culimadu waxay u badeen inay qalbul ayaan sameyn karin oo cayntii inaanay cayn kale u bedeli karin shayga laftiisa shay kale inaanay u bedeli karin waa laba midkood in shay ay soo xadaan sida qisada culimada qaarkood ku tahay ku qoreen nin maka joogay makana lagama aqoon xalwad iyo waxa xalwad loo keeni jiray marka shayaadiinta uga soo xadi jirtay Yaman dukaan ku yaala marka in lacag xaqiiqi waxaan uu yahay oo ay cid soo xadeen ay ku keenaan wax dhici kartaas waxa kale dhici karta sida ninkaas oo kale inuu sheegay inuu qiyaani lacagta nacnac ku iibsanay wuxuu kadib waraaqe iska noqonaysa indhaha iyaga iyo qofkii wax iibinayay indhiisunbu lacag inuu yahay uu moodsi laakiin fi xaqiiqo waa maxay waa waraaq wala mada midkood weey